السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالوا كسو دوادا أسماء كوكين أم بيوتي waad ka heli doontaan waxyaabo badan oo ka faa'iidaan sida cunto karinta iyo isqurxinta labadaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta aan jecelahay meel kasta aad joogtaan dunida daafaheeda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mar kale iyo asmaa cooking and beauty. waxaan maanta inii wadaa maas yar oo wajiga u fiican kaasoo aad ka faa'iidi doontaan. wuxuuna u fiican yahay gabdhaha wajigoodu jecjecay yahay insha Allah bismillaah kariim. haddii asata u marsataan waa ka faa'iidi doontaan. halkan waxaan ku haystaa huruud yar. waa huruud waxaan ka isticmaali doonaa teaspoonka. halkan waxaan ku haystaa qasil isagana ka isticmaali doontaa teaspoon. halkan waxaan ku haystaa warango cornflour ama warango ama nashaad saa u taqaanid. halkan waxaan ku haystaa caano waa caanaheena caadiga caano booro qofka caano haysto oo dhan isticmaal kara. halkan waxaan ku haystaa heed qofka u baahan oo heedaas aad bay waji ugu fiican tahay. waxyaabaha ay ka qayb qaataa waa nafaqooyinka qaarkood oo jirka u fiican qofka jirkiisa cuna heedan aad bay ugu fiican tahay. marintana waa la mid heed qofkii raba aragtideeda waa taasay heed xasaa heed la dhahaa insha Allah iyadoo mirihiisa waxa qofkii raba inuu barto oo arko waa geedka noocaas waan soo shiitay wajiga marsada marka maaskan wajiga marsada ku darsada aad bay u macaan ugu fiican tahay wajiga. waxay ka bixinaysaa jacjaca oo dhan wajiga duuduub nadiifna way kaaganaysaa waxaad ku farxid wajiga ku noqonaya insha Allah waa isku darsan doonaa waan isku qasan doonaa haddii Allah awood la idmo ila socodsa isugu darsano faa'iidooyinkiina idinka ka soo jawaabi doona haddii Allah awood la idmo. waxaad ka heshaan ka waxaan ku shubtay huruudii waa teaspoonka afkeeda wajiga wax kugu filan korka dhan waad marsan kartaa masha Allah laakiin aan wajiga geliya u rabaa. waxaan ku darsaday cornflour-ki heedi waa heedi tani waxaan ku darsanayaa qaado afkeeda iyadna warangadii ah ama nashaata oo taqaanid qaado caano ah waxaan ku darsanayaa qasilkii insha Allah bismillaah kariim. qofku wajigiisa daraaga yahay wuxuu ku darsanayaa wax yar oo saliida qofku qoyaan leeyahayna wuu iska dhaafayaa insha Allah. intaasna isku qasaynaa inta markaan isku qasana dabadeed wajiga ku qabanaya insha Allah. idinkana soo tijaabsho walahi aan jeclahayo aad baad ugu heli doontaa faa'iidooyin badan buu leeyahay. qofka wajigiisu laalaabka yeesho way ka bi'in haar qofku hadduu leeyahay laftigeedu wuu ka bi'in sidii maaskii kuugu dhegi oo wax wajiga qaban dabbaad ku siin maasha Allah bismillaah kariim waa ka faa'iidi doontaan. qofkii raba malabka aniga allergy baan ku qabaa malab ku darsan karaa waa nafaqa inaba aan caadi ahayn oo ka heli doontid insha Allah bismillaah kariim. haddii ilaahay idmo soo tijaabsha dhinaciina subscribe like iyo share waa idinka si uga faa'iideystaan walaalo kaleeto insha Allah bismillaah kariim. haddii Allah awood la idmo isugu qasaya insha Allah. haddii Allah awood la idmo waa maas yar inaba caadi ahayn inaba qofkii marsada ka sheekayn kara soo tijaabsha masha Allah bismillaah kariim. waxa aad u qurux badan kaasaya la socod wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah. fiidiyowga dambe oo kan ku xigan waxaan kaga hadli doonaa lugaha iyo wixii la marin lahaa insha Allah. haddii Allah awood la idmo ka faa'iidi doontaan isagana insha Allah bismillaah kariim. la socod wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah meel walba dunida daafaheeda ka joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.